kulan wacan daawadayaal halkan waa Somali News Media qodobada ugu waaweyn ee aad warkeena ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona xog culus oo laga helay siyaasiyiinta beesha Habargidir uu horkacayo taliyaha nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad oo ku heshiiyay qofkii bedeli lahaa Cali Yare Cali gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda oo u diga rogtay inuu taageero weyn u noqdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan qodobada kale ee barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono beerweyntii Mudulood oo baraarugtay ciidamo aad u badan oo u roqaansaday dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo beesha Abgaal oo deegaano badan ka difaac galaysa. barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan xogaayihii hore ee golaha shacabka oo xog cusub ka bixiyay lacagihii musharaxiinta laga qaaday ee la lunsaday maadaama asiga kol hore lagu eedeynayo in uu lunsaday lacagtii musharaxiinta ay doorashada ay ku galeen. qodobada kale waxa qayb ka noqon doono maleeshiyaad kor u dhaafaya ilaa 300 oo dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay gobolka Hiiraan. wararkii u dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi ka socda ayaad barnaamij wareedkeena muddada uu hawada ku jiro aad ku daawan doontaan saaxiibayaal. qodobada iyo qodobo kale oo xasaasi ah oo aan idin qarinayo ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan. waa hagaag aan ku bilaabo. waxaa xoga la helay heshiis laga gaaray loolan iyo tartan awood qaybsi ah oo u dhaxeeyay siyaasiyiinta beesha Habargidir ee taageersan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. arrinta aadka la isugu hayay ayaa ahayd cid loo magacaabayo xilka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda oo awood qaybsi ahaan ay beesha Habargidir ee u leedahay maamulka gobolka Banaadir. maalmihii la soo dhaafay waxa arintaasi aad isugu hayay taliyaha hay'adda nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad oo dhinaca iyo sidoo kale xildhibaan Saabir Shuuriye iyo Abshir Buqaari oo kala matalayay labada beelood ee isku afgartay in xilkaasi la siiyo beesha Saleebaan iyadoo la filayo in mar kale loo magacaabo xilka gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo xilka hore u soo qabtay haddana ah maareey ku-xigeenka dekedda ee Muqdisho. taliyaha hay'adda nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad ayaana la sheegay in xildhibaan Saabir Shuuriye iyo sidoo kale Abshir Buqaari uu ku qanciyay in kursiga gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir la siiyo markaani qof ka soo jeeda beesha Saleebaan iyadoona siyaasiyiintu ay sheegeen in ninkani uu dhaamo Cali Yare Cali oo ay beesho ay ku qasaartay. magacaabida gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ayaana wali la magacaabin iyadoo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jamcaali Madaale uu ku shaqeynayo laba kamid ah gudoomiye ku-xigeenadii hore ay magacaabaday dawladii Farmaajo. Cali Yare ayaana dib ugu laaban shaqada maamulka gobolka Banaadir tan iyo markii doorashada looga adkaaday saaxiibkiisa ugu weyn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo uu mushaarkiisa uu qaato waxaana hoosh ugu weyn xilligaani Cali Yare uu qabtay ay tahay in baraha bulshada uu ka taageero madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee doorashada looga adkaaday. Cali Yare ayaa waxay saaxiib dhow yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale wuxuu qayb ka yahay xubnaha ugu muhiimsan ee taageerayaasha nabad iyo nolol isagoona maalin waliba qoraal uu soo saaro ku taageero madaxweynihii hore ee Soomaaliya. dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la sheegayaa in awood badan iyo saameyn ay ku leeyihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Habargidir oo xilal muhiim ah ka haya madaxtooyada iyo sidoo kale xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana taas cadeen u ah in beeshu ay xilligaani xilal muhiim ah ay ka hayso madaxtooyada iyo sidoo kale taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. dhinaca kalena haddii aan eegno beelweynta Mudulood ayaa baraarugtay iyadoona xilligan u soo jeesatay in deegaanadeeda ay ka xureysato kooxda Al-Shabaab. beelweyntii Abgaal ayaa baraarugtay iyadoona xilligaani beesha Abgaal ee aagag weyn ay difaacay ka galayso. ciidamo fara badan oo ka tirsan beesha Abgaal ayaa siyaabooyin kala duwan Muqdisho uga baxay iskood ayayna isku abaabuleen. saraakiisha hogaaminaysa ciidankani ayaa waxay sheegeen in howlgallada ugu horeeya ay ka bilaabi doonaan gobolka Shabeellaha Dhexe. mas'uuliyiin kala duwan oo xildhibaano federaal ah iyo sidoo kale saraakiil ka soo jeeda beesha Abgaal ayaa ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoona halkaasi ka wada abaabul dagaal oo ka dhana Al-Shabaab. sidoo kale waxaa jiray ciidamo fara badan oo loo yaqaan kuwa macawisleyda kacdoonka shacabka oo ka bilowday gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana saraakiishu ay sheegeen in deegaanada ugu horeeya ay la wareegi doonaan ay tahay
aadan yabaal oo al-shabaab xarumo waaweyn ay halkaasi ku leeyihiin sidoo kale isla aadan yabaal waxaa ka bilowday in al-shabaab ay halkaasi ay ka barakacaan isla markaana ay ka rartaan haweenkooda iyo sidoo kale caruurtooda waxaana la sheegay in askar badan oo shabaab ahaa oo dhaawac ahaa halkaasi laga daadgureeyey dagaalamayaasha al-shabaab ayaana sidoo kale gebi ahaanba faaruujiyey degmada aadan yabaal maadaama ay ka warhayaan in ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ay isku aruursanayaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe aadan yabaalna ayna waqti ku qaadan karin ciidamada ay tigi doonaan saraakiisha horkacaysa ciidamada waxay sheegeen in qorshahooda ugu weyn ay tahay maadaama gobolada kale ee dalka al-shabaab laga soo saaray ayna tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka ciribtiraan gobolka Shabeellaha Dhexe oo al-shabaab waayihii dambe ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen maadaama gobolkaasi uu yahay xudunta kaliya ay ka weeraraan gobolada kale qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira haddii aan eegno xoghaayihii guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Buux ayaa 10 sano kadib shalay wuxuu wareejiyay xilkaasi kadib markii uu iska casilay dhawaan wuxuuna sharaxaad uu ka bixiyay halkii ay ku dambeysay lacag la rumaysan yahay in musharaxiintu ay bixiyeen xilligii doorashada Cabdikariin Buux ayaa lagu eedeeyay in lacagahaasi inta ugu badan oo lunsaday maadaama laga soo gudbay arrimihii doorashooyinka sidaas darteedna Cabdikariin Buux uu lunsaday lacag badan oo arrimaha doorashooyinka ka soo xarooday Cabdikariin Buux ayaa wuxuu ka jawaabay eedda loo jeediyay ah inuu lacag lunsaday wuxuu sheegay Cabdikariin Buux in lacagahaasi toos loogu shubay qasnada dawladda isla markaana loo maamulayo si waafaqsan sharciga maaliyadda dalka maadaama dalka ay ka jiraan abaaro wuxuuna sheegay in lacagaha ka soo xarooda musharaxiinta qaarkood lagu kabi doono kabka miisaaniyadda dawladda iyo sidoo kale arrimaha gargaarka ee la xiriira wax ka qabashada abaarta ka jirta dalka Cabdikariin Buux ayaa dhawaan iska casilay xilka xoghayaha guud ee golaha shacabka isagoo aan shaacin sababta waxaana markii uu xilkaasi iska wareejiyay soo baxay eedeymo la xiriira in uu lunsaday lacag badan oo arrimaha doorashooyinka ay musharaxiintu ay bixiyeen intii ay ku jireen ololaha doorashooyinka haddii aan qodobka ugu dambeeyo ee barnaamijkeena aan eegno in ka badan 200 oo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gobolka Hiiraan maamulka Hirshabeelle ayaana shaaciyay in deegaanka Jicibo oo qiyaastii dhinaca waqooyi kaga beegan 30 kiiloomitir magaalada Buulaburde ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo aad u tiro badnaa dagaalamayaasha ayaa la sheegay in deegaankaasi ay isku aruursanayeen isla markaana ay ka wadeen abaabul dagaal oo ay ku doonayeen in ay kala jaraan wadada isku xirta degmooyinka Buulaburde iyo sidoo kale magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana la dilay in ka badan 300 oo dagaalamayaasha al-shabaab sida ay maamulka Hirshabeelle ay sheegeen si guud gobolka Hiiraan maalmihii la soo dhaafay waxa ka socday abaabul dagaal oo ka dhana al-shabaab waxaana bishii September ilaa xilligaani ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka u suura gashay in al-shabaab ay ka saaraan wax ka badan ilaa 50 deegaan oo ay gobolka Hiiraan ay ka maamuli jireen iyadoona intii uu socday dagaalka gobolka Hiiraan lagu dilay amiirar ka tirsanaa al-shabaab uu qayb ka yahay afayeenkii kooxdaasi al-shabaab Ali Dheere oo la sheegay in lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolkaasi waxaana sidoo kale gobolka intay dagaalada ka socdeen ay al-shabaab ay isku dayeen in weeraro ismiidaamina ay ka fuliyaan deegaanada gobolkaasi Hiiraan waxayna qaraxyo weeraro ku bilowday ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xudunta gobolkaasi Hiiraan guud ahaanna saaxiibayaal waxaan jeclahay inaan halkan ku soo afmeero barnaamij wareedkeena aad ka daawanayseen Somali News Media inta barnaamijkan kiisi xigaan ku kulmi doono nabadgelyo